السلام عليكم ولا مغلا اوكي magacayga Mustafa Magan baa la yiraahdaa waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarkan Norrköping Corones Hals la yiraahdo marka waa cudurrada qoorta iyo wixii ka sareeya ku dhaca marka maskaxda lafteeda laga reebo dhakhtarka Linköpingna waan ka shaqeeyaa magaalada Linköping baan deganahay marka Soomaali badan baan halkan kula kulmay maanta waxaan doonayaa inaan nagala hadlo cudur ku dhaca xididada wadnaha marka cudurkaasi wuxuu ku caan baxay amba waxa lagu gartaa calaamadan ah in qofka ay laabta xanuunto amba breast smarter wax la yiraahdo marka cuduradan aan aniga iyo Dr. Axmed oo igu xiga ka sheekayn doona aabi iyo hooyay leeyihiin sida hore la inii sheegay waxa aabe iyo hooyo waa dhiigkarka iyo sonkorta waxaanu ka sheekaynayna waxay dhaleen weeyaan waa ciyaalkoogii weeyaan ay la oran karaa marka berigii hore dagaaladu markay jireen diyaarad iyo kaare la isku gaani jiray seefta la isticmaali jiray ciidan hadii la doonayo in la jabiyo ninka ciidanka wata amba generalka amba taliyaha hadii laga adkaado meel dambe laga soo galo ciidankii kale la dagaalamay way jabayaan marka hadii qofkan cuduradan aanu sheegano doonayo inuu ka hortago waa inuu labadii hore iska ilaaliyo la dagaalamo labadaasi haday yimaadaan kuwana way daba socdaan kuyuga ugu jiraan marka qofku inuu ay laabto xanuunto cudurro badan ay ka dhaxaysa oo keeni kara waxa kamid ah cudurrada caloosha ku dhaca wadnuhu halkan uu ku yaalaa dhinaca bidixda marka calooshii baa u dhow haduu calooshu cudurro badan oo kala duwan haday ku dhacaan iyaguna xanuun bay inta badan leeyihiin qofku beerkiyo halkana haduu xanuun isna ka gaaro haduu cudur ka gaaro xanuun baa ka dhici kara xabaatigii ganadkii oo imka la tusay meeshii ku yaala xitaa waxa ugu fudud cudurrada laabjeexo kaliya qofku xanuun ayuu dareemi karaa oo cudurkan waa la isku khaldi karaa marka maxaan cudurkan wadnaha ku dhaca oo kaliya cudurradaas oo badan uga soo doortay sababtu waxa weeyaan wadankan Sweden aanu joogno waxay leeyihiin cudurro dilaaya sida wadankeeni bay lahaayeen wadankeeni inta badan TB-da iyo infectionka iyo shubanka iyo wixii la mid ah oo nafaqo darro iyo wax la mid ah keentay ayaa jira wadanka way jiri jireen laakiin imika markay qaniin noqdeen cudurro kale oo cudurrada reer magaalka lagu yiraahdo sidii imika Dr. Mahdi noo sheegay ayaa kuwa dilaaga number 1 ka waxa ka cudurrada wadnaha iyo xididada dhiigga ku dhaca marka waxay sheegan hay'ad tabaarkad leeyahay sanad kasta waxa dhinta dad lagu qiyaasi karo 100,000 oo qof 100,000 oo qof saddexdii meelood meel sabab la xiriira inuu qofku wadna xanuun ku dhaco amba stroke ku dhaco marka waa xididada leeyahay cudurrada leeyahay ya shaalku tumar yani wadnaha iyo xididada dhiigga ayaa saddexdii meelood ba loo dhinta dartood number 1 ka inaynu inagu filana laga yaabo waxaas leenahay kulay waa cancer Soomaa isagu waa number 2 ga sida tabeelka makaarka marka sidaa daraadeed ayaan u doortay marka cudurkan maxaa sabab maxaa keena cudurkan iska yimaada mise wax sababa oo xitaa qofku ka hortagi karo ayaa jirta marka risk factor baa la yiraahdaa anu Swedish baan ku qoray marka in kelmadaha caafimaadkana yar barataan baan doonayaa marka waxyaabaha keena waxa jira qaar qofku uu ka hortagi karo kuwa barkibora waa wixii aad ka qaban karto qaybna waa qayb hidda oo sidii markay leeyahay sheego hidda wixii Ilaahay qoray weeyaan waxaanu ka qaban karno ma jirto laakiin qaar waxa jirta qofku wuxuu noloshiisa sameeyay sababtood ay u yimaadeen maxaa kamid ah wax weyn maaha sigaarka ayaa mid kamid ah marka sigaarkii haddaan sheegay waska fahmin kartiin waxa kale ku xiga afar qodob baa ku xiga marka yaa ii sheegi kara kuwa kale maanta dhan baa laga sheekeynay wax adinku aad noloshiina qofku noloshiisa sameeyay sigaarka oo kale qasama cusbada socod la'aanta xagga dumarka waa inaga badan yahay rag kale tirada miisaanka oo kale waxba inaguma dheereynayo intaas halkaad ku arkasaan mid maanta hortay aan la sheegin ma jiraan
marka waxa weeyaan qofku sigaarka inuunu socod badan samayn physical inactivity marka lagama hadlayo waa noolnahay waan soconaa iskool baan taganaa shaqaan taganaa ciyaal baan ka shaqaynana waa la socdaa laakiin taa in ka badan baa laga hadlaya qofku waqtigiisa maalintii inuu in gaara u qabto uu tababar ugu taro hadhow baan ku soo noqon doonaa waxaan uga jeedo iyo raashin ka culus ee imika layna tusayay ayaa sababka ma qaadka oo kale ayaa ka mid ah khamriga alxamdulilah inaguma badno iyo cudurrada maskaxda ku dhaca iyaguna waa keeni karaa marka cudurradaasi maxay samaynayaan raad ayay kaga tegayaan jidhka waxaasoo dhan waxaad u arki kartaa uskag markaa wadnaha waxbay kaga tegayaan daxal bay u yeeleen waxaa ka mid ah dhibkooga sidii imika laynoo sheegay inuu qofku miisaankiisu aad kor u kaco in dufanka dhiigga in baa loogu talagalay inay dhaafto imika dadkan dhulkeen laga sheegay inay abaaruhu hayaan ilaahay ha badbaadiye iyagu dufankoogu maxaad malinaysiin kor baa masoo hoos waaba eber bahdu doon laakiin innaga cirku u kacsan yahay soo ma iyo dhiigkarka waxaasoo dhan waxay sameynayaan xididka dhiigga ayay waxaani marayaan markaa raad bay ku yeelayaan nabar bay u yeelayaan haddii laysku soo duuduubo cudurrada ay intaas keenaan waxaa ka mid ah sonkorta imika layniga sheekeeyey waxaa lagu qiyaasaa 5 qof oo sonkor qaba hadday meel wada joogaan mid stroke baa ku soo socda waa cudur ku dhaca maskaxda oo khatara dadkii curyaanka ah imika doctor maslaxina tusayay cudurka ka mid ah weeyaan waxa kaloo ku dhaca cudurkan imika aan ka sheegayo waxa kaloo ku dhici kara cudurrada wadnaha ku dhaca sanbabada ku dhaca xitaa qofku inuu dimirta amba xusuustu inay ka tagto sida qofka dadka waaweyn oo kale inuu cancer ku yimaado in keliyahaagu istaagaan xitaa waxaa jirta qofku hadduu aad u buuran yahay inuu ciyaal bay ilaahay siin ay sabab uga noqoto sababuhu ay badan yihiin laakiin sabab bay ka noqoto labada qof ay isqabaa hadday aad u buuray miisaankooga aad u buuran yihiin waxa ugu horeeya lagula taliyaa waxa weeyaan miisaanka horta iska dhima intaan wax kale la bilaabin marka waxaan doonayaa intaan cudurkan gelin bal wadnuhu horta runtiisa markuu caafimaad qabo siduu u shaqeeyaa kani waxa weeyaan wadnihii sanbabadii oo hareerihiin ah kolay dadka waaweyn waa garanaya xoola qataan nahay waynu aragnay kana waxa weeyaan wadnihii oo la soo saaray marka wuxuu ku yaalaa dhinaca bidix waxa la yiraahdaa qiyaas ahaan qof walba gacantiisa oo loo laabay weeyaan wax 70 gram weeyaan laba wuxuu dhiibay mas'uul buu ilaahay u dhiibay kow inana dhiigga jirku isku beermin waxay ka mid yihiin dhiig uu jirku isticmaalay uu iska soo celiyay iyo dhiig uu jirku u baahan yahay nafaqadiya marka labada dhiig hadday isku biiraan qofku ma noolaan karayo marka sidaa daraadeed Dr. Ahmed baa niga sheegi doona waxa weeyaan waa 4 qol kuwa weyn iyo kuwa yar qaybta midigta iyo qaybta bidixda marka qaybta midigtu waxa hawsho looga dhigay dhiigii jirku isticmaalay inuu ku soo ururaan hay sanbabada u diraan sanbabadu maxay sameynayaan marka idinkaan weydiiyay sanbabadu dhiigga maxay ku sameeyaan maxaa sanbabada maxaan uga baahanahay sanbabada hawada marka oxygenkii ilan dhiigii jirku isticmaalay wuxuu uga baahnaa uu ka isticmaalay uu iska soo celiyay marka sanbabada loo dirayaa sanbabaduna oxygen bay ku dirayaan qaybta bidixda ay ku soo dhacaan bidixduna halbowluhu ku tuuraya jirkii buu dib ugu celinaya loo kala qaybinaya kaasi waa wadnaha inuu dhiigga jirka u qaybiyo inuu isku noo darina laakiin isagu dhiigga sidoo hela halbowlaha waxa jira xididda yar oo ka soo baxa sida ciridda geedka oo kale oo wadnaha dul mara oo waraabiya oo dhiiggii u baahnaa isagu siiya marka cudurkan aan ka hadlayaa xididadan buu ku dhacaya xididaduna waxa weeyaan wadnuhu waa machine baa la oran bam sida wuxuu buuxinaa wax kale ma qabto dhiigga halka minute halka fadhidaan 70 jeer wixii makaan ka sheekeynay ayuu saa u qabanaya marka isagu gas buu baahan yahay shidaal buu baahan yahay shidaalkiisa xididadaas ayuu ka helaa
xididadaasi hadday wax noqdaan wadnuhu ma shaqayn karo xididaduna way kala duwan yihiin oo sidaan arkaan xidid kastaaba meel ka mida wadnaha ayuu waraabiyaa waa sida beer oo kale dhowr tuumbo biya had gelisay haddaad 5 tuumbo gelisay markaa 2 ka xidhay beerta intii kale waa soo baxaysaa sama markaa saasoo kale wadnuhuna weeyaan markaa xididadu saasay wadnaha dhiigga waraabiyaan markaa maxaa dhacaya markaa risk factoriyadii sigaarkii iyo socod la'aantii iyo raashinkii xumaa xididka raad bay ku yeelayaan waxaan lahaa waa si uskagoo kale dufankii baa ku dhegdhegaya baalka soo maaragtaan dalool baa jira qalimadaasa buuxiyey markaa waa xididku markuu bukoo kale dhiiggu inay halkaa daloolkaa maraan dhex maraan laakiin wuu buuxaa waxaa loo baahan yahay inuu sidaa u daloolo laakiin waxyaabihii aan samaynay dartood saasuu isku bedelaya xididka guntiisii waxbaa ku dhegdhegaya markaa dhiiggii ma mari karo way ku adag tahay dhiiggu inuu dhaafo uu meeshii gaadhayay uu waraabiyo waxaasoo dhan waxa sababaya oo wixii iminkaan ka hadlanay aabbiyo hooyana oo yihiin sonkorta iyo dhiig karka sabab waxaa keenayaana boqolkiiba waxa dadka cilmi baadhistu yidhaahdaan boqolkiiba 94 waa wax qofku ka hortegi karo wax yar maaha haddii la baabuur maanta waxaa discount la siinayaa 95% cidi halkan ma fadhidaan baan filaysoma marka waa number weyn weeyaan marka xididkii markuu caadiga yahay sida caagga imka banaan oo kale dhiigu saasuu marayaa markuu cudurrada yimaado dufankii baa ku dhegdhegaya dhexdiisii buu jiq ka noqonayaa dhiiggii ma dhaafi karo markaa wadnaha qaybtii waraabinayay isla markii isla secondkuu dhiigu xidhmaba dhaawac baa gaadhaya markaa maxaa lagu dareemi karaa maxaa qofku ka qaran karaa laab xanuunka markaa laabtu qofka halka laabtay ku dhacsaa breast corian ayay ku dhacsaa qofka mararka qaarkood dhabarka ayay duusi kartaa oo dhabar xanuun buu dareemi karaa mararka qaarkood qoorta ayuu xanuunkani u fidayaa ilaa daanka ilaa labada garbood ilaa labada gacmood waxaad dareemaysaa naqasku inuu aad kuu dhibayo inuu qofku aad u daalna yahay sida qofka cumaha oo kale gacanta saa loogu hayo oo kale dawakhaad buu qofku dareemi karaa uu markaa mat qabanayo amba uu matagayo wuxuu dareemi karaa in wadnuhu si aan caadi ahayn oo si kala duwan kolba u garaacayo marka qaarkoodna cudurkii oona calaamad lahayn baa iska imanaya oo qofka qabanaya qofkii u dhacaya laakiin way yar tahay taas marka cudurradan calaamadahaas leh way kala duwan yihiin waa la kala qaybiyaa qaar waxaa la yidhaahdaa angina pectoris amba shal cramp waxay culimada waaweyn ee Soomaalidu yiraahdeen af Soomaali waxa lagu oran karaa wadna xanuun anagu Soomaali waxbaan kuma soo dhigan anu iimiyaan ku soo dhigtay dadka kale Yurub baan ku wada dhiganay laakiin magac kale haddaad ku ogtiin noo sheegay marka magacyada waan ururinaa marka wadna xanuun waxa la yiraahdaa markuu calaamooyinkan laabta xanuunka ka mid tahay ku qabtaan adigoo hawl haya markaad hawl hayso hawl culus yani waad socotay waad yar orday lugta dheeraysisay jaranjar baad kortay alaab culus baad qaaday hawl ku yar daalinaysa oo culaysa ambaad ku dhiidayso markaad qabato ayuu ku qabanayaan مثلا adigoo xoog u socday haddaad istaagto 15 mirir gudaheed ayuu ka baaya yani waxa weeyaan xididkana mikani tusayay ma wada xidhmo laakiin qayb baa ka furan hawsha markaad dheeraysiiso dhiig badan buu jirku u baahan yahay yani imka haddaad fadhidaan iyo haddaad ordasaan so energy-gu ma kala duwano baabuur lagu wado 30 oo taayiradiisu saa rogmasaan iyo mid laamida iyo fiirasta kolom socda gaaska uu qaadanaya ma isku mid ba waa saas oo kale marka hawsha badan xididku ma kari karo sida daraadeed ilaahay jirka wuxuu ka dhigay markuu cudur inagu dhaco inay calaamad bixiyaan calaamadaasina
innaga ayay baraarugi noo tahay inay wax jiraan marka qofku waxay isla markiiba u istaagayaa 15 mir 20 mir gudaheed hadduu ku boo markaas cudurka la yiraahdo marka waa soo dhow yahay ma garad khatartii baa markaa bilaabay mararka qaarkood waxaa jirta cudurkii intuu sidaa kuu soo hayay ayuu dhowr wiig wax isku bedeli karaa 2 wiig hor sidan uu ku hayay laga yaabo in qofku goobta caafimaadka tagin kadib maalmaha ka mid ah adigoo sidii u socda xanuunkii baa ku qabanaya laakiin kaama baayo maaniga may haddaad istaagto haddaad seexato haddaad gilgilato kaama baayo marka waxa weeyaan xididkii ayaa totalkii u wada xidhmay weeyaan waxa ka mid ah acute-ka dadka ka shaqeeyay waxaad ku arkaysaa mararka qaarkood qof isagoo suuqa socda amba gurigiisii jooga laabtu xanuuntay ambulaansku soo qaaday lagu daweeyey sidaa ku bogsaday waxaa ka mid ah qaar dad meeshay joogaan isla markiiba ku miirbaalay oo kala dhacay oo yacni iyagoo dhintay oo kale ah ay dadka badbaadada ee ambulaansku soo qaadeen hawadii naqaskii la siinayo wadnihii hawshii wadnuhu qabanayay si loo qabto wadnaha halkaasaa loo riixayo oo dhiiggii loo kala qaybinayo jirka markay acute-ka yimaadaan la daweeyo soo noolaanaya iyo qaar ka mid ah halkaa ku dhimanaya mayd aan la soo noolayn karin oo ilaahay u qoray waqtigoodii markaa si degdega wuu ku iman karaa si fududna waad sii dareemi kartaa in waxaan soo socdo calaamaha marka waxa muhiim ah waxyaabaha nii sheegay qofka dadka waaweyn baa hadduu ni qabto waa inuu qofku etet foo la waco maaha inaad board control ku sii carartid inaad baawur ka haysatid etet foo waad garaacsaa ambulanska emergency-ga marka iyagaa ku caawinaya marka waa cudur sida noo sheegay waa dilaa weeyaan waxaan sheegaynay 100,000 qof sanadkii dadka dhintay Sweden cudurrada ay saaxiibada yihiin oo isaga ee 3 meeloodba meel dila isaga waxa la yiraahdaa 10,000 qof uu dilaa sanadkii 5,000 saas u dhacaan marka dhakhaatiirta halkan hor taagan way isla wada kulmeen ma filayno qof halkan jooga ana la soo kulmin qof cudurka acute-ka ugu yimiday oo ku dhintay amba meel dhimasho ku dhow laga soo qabtay kaasi waa ka weyn waa xididada wadnaha laakiin xididada jirku waa badan yihiin wadnuhu kaliya ma tagaan waa badan yihiin kani waa stroke waxa la yiraahdo xididada kale ku dhacay muhiimka stroke weyn marka xididka maskaxda dhiigga siinaya ayaa xidhmaya sidii wadnaha kale amba waa dilaacaya dhiig ba maskaxda ku furmaya markaasna degdeg waa in qofka loo caawiyo kan iyo wadnaha waxa laga hadlayaa waa sekano waa minido waa dhowr saacadood cudurrada kale oo dhan badankooga cancer oo kale haday tahay qofku waa in dhowr bilood ama dhowr wiig gudahood la daweeyo laakiin kani waa wax isla degdeg emergency markaa waxa ka lagu dareemaa qofka muruqadiisa baa isbedelaya daankii afka hoos baa u dhacaya ilaa maskaxdii ayaa dhaawac ku gaaray gacan iyo lug israacday ayuu curyaan naafo qof ka noqonaya ma kaxayn karayo hadalkii ma samayn karayo dadka waaweyn haddii lagu arko waa in isla markaa emergency-ga la wacaa waqtiguna waa muhiim okay maxaan haddaba qofku u samayn karaa si uu cudurkadan uga hortago waxa weeyaan wixii Dr. Maslax ka soo sheekeynayay imika in qofku si sax ah raashinka u cuno oo sixnigu sidaa noqdo maaha sidan inuu noqdo imika la intusaye u barakaysan yahay laakiin khatar buu leeyahay kaas waa marka aroosiyada iyo marka sheekhyada iyo dhakhaatiirta la casuumayo waa iska furan tahay laakiin inta kale waa shanta cisho kale waa in sidaa la isku dayo iyo dhaqdhaqaaqa sigaarka iyo qaadka in la iska joojiyo stresskana intii la kari karo in la iska yareeyo isagoo dhib badan iska yareeyo laakiin in la isku dayo dhaqdhaqaaqa waa la inii sheegay wax maaha inima le jimka taga oo card soo iibsada inima le soo meelaha kubadda lagu ciyaaro taga qofku ciyaalkiisa kubadda iskala ciyaari doona qoyskiisu iskala ciyaari karaa asxaabtiisu iskala ciyaari karaa inta guriga la fadhiyo telefoon saacado lagu sheekeynayo Afrika iska bax talaabada dheere intaad bas u raaci lahayd
amba baabuur shaqada hadday ku dhowdahay lugta ku lugaa ilmaha faaganka la bax la soo carab sidoo kale aabo inuu kubadda ciyaalkiisa la soo ciyaaro marka qofku inuu dhidido 30 mirir maalintii oo 5 cisho ee la shaqeeyaa isniinta ilaa jimcaha taasaa muhiima oo weliba joogitaan ma aha inaad weegna samaysid weegna ka bood laakiin si joogitaan waxa qofku hadduu sameeyo boqolkiiba 50 cuduradana ka sheegayay hoos buu dhimaya marka riskigooga inay ku dhacaan hoos buu dhigaya sigaarka runtii iyo qaadka in waqt mawduuc gaar ah la siiyo weeyaan labada dhib ay naga haysata khamrigu dhib naguma hayo laakiin sigaarka iyo qaadka insha Allah mar kale ayaa laga hadli doonaa iyaguna waa muhiim dhibkan uma aanu sheegnay laakiin dhib kale iyaguna leeyihiin marka xusuusti ahaan waxaan igaga tagayaa sababta casharkan maanta halkan uga jeediyay inuu qofku ogaado cudurradan waxa keena iyo sida looga hortagi karo talabaad ishan dad muslima haddaynu nahay in la naawriyo amba isha la nagu qabto waa laga baqaa Soomaa marka cudurradan isha xun ku xusuustaan oran lahaa isha dhexdeedii waxa ku jira waa stroke waa cudurkii wadnaha iyo sonkortay waxa keenay hareerihiisana waa dufankii socod la'aankii raashinka cusul milixdii wixii maanta gidaynu ka wada hadlin marka waxaan doonayaa inagoo dhan idinku ma in xitaa anaga inaynu nolosheena la xisaabtano aynu dib u fiirino aynu eegno marka maanta inta aan isku sheegnay halkay nolosheenu marna nolosha raashinkan cunano siduu yahay jimicsi ma sameeyna marka sidan diintaba la inooga baahay inaan camalkeena isla xisaabtano tanna waa in la xisaabtano qofku hadduu jirkiisa ka shaqeyn stroke ku dhaw wax kale waajibkii diintuna waa ku adagtahay inuu ka soo baxay loo abuuray marka waa wax aad iyo aad u muhiim ah inaynu ka fikirno saasanad ku mahadsantiin